بسم الله الرحمن الرحيم مالو wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka waxa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan aan caadihin isugu yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee meel mariyay dhameystirka dastuurka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo qaadaya tallaabo kale oo culus oo ku aadan arinta dastuurka waxa la wadaagi doonaa macluumaadkii wararkii ugu dambeeyay maxay tahay fariinta aan la dhaliisan karin ee madaxweynaha jamhuuriyadda u diray siyaasiyiinta ka fikir duwan maamulkiisa iyo kuwii shalay xukunka isaga kula tartamayay waxa la wadaagi doonaa macluumaad gaar ah arintan ku aadan qodobada kale ee soo gudbin doona waxa kamid noqon doona xildhibaanadii Puntland ee loo diidanaa in muddo inay tagaan magaalada Garowe kuna xanibnaa magaalada caasimadda Muqdisho maanta waxa loo fasaxay iyaga iyo sidoo kale la taliyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni inay aadaan magaalada Garowe haddaba muxuu ahaa qorshaha raggan ay u xanibnaayeen maxaase ku soo aadiyay xilligan markii dawladda Soomaaliya ay dhameystirtay dastuurka baarlamaankiina ay u codeeyeen in xildhibaanadan la fasaxo xog gaar ah inta ku aadanayeen idin soo gudbin doona xildhibaanadan oo si balaaran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe sidoo kale wararkeena waxa qayb ka noqon doona hadii alweyne laga helo faafahinadii iyo wararkii ugu dambeeyay mucaaradka oo magaalada Muqdisho ka wado dhaqdhaqaaq culus oo ay ku diidan yihiin qorshaha dawladda Soomaaliya ay ku dhameystirtay dastuurka kulamada Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka ay ka wadaan magaalada Muqdisho ayaan warar kaga heenaa dawlad goboleedyadii ugu horeeyay ee siyaasiyiin soo dhaweeyay arinta dastuurka qaadana tallaabo si weyn uga farxisay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan idin la wadaagi doonaa sidee shacabka Soomaaliyeed ay kaga falceliyeen dastuurkii la dhameystiray waana la wadaagi doonaa xilli diidmo adag oo xoog lagu kala kulmayo qaar kamid ah maamulada dalka ka jira qodobada ayaan ku dul istaagi doonaa qaybtan hadii la weyno qadaro soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaawno wararkeena maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu qaadayaa tallaabo kale oo weyn oo ku aadan arinta la xidhiidha dhameystirka iyo wax ka bedelka dastuurka iyadoo oo baarlamaanka Soomaaliya maalintii shalay ahayd ay si rasmi ah u dhameystireen oo ay u codeeyeen dastuurka dalka uu yeelanayo kaasi oo in muddo dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka shaqeynaysay sidii loo turxaan bixin lahaa iyada oo ugu dambeyntiina soo gabagabaysay galka dastuurka xilli farqaha ay haystaan xubnaha mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa haddana caawa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu qaadi doonaa tallaabo kale oo aad u weyn oo ku aadan arinta dastuurka sida inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu caawa isugu yeeray kulan aan caadi ahayn kaasi oo aan fura sidoo kale tana madaxweynuhu uu si gaar ah uga qaadan doono xildhibaanada muxaafadka ah meel mariyay dastuurka waxa la xaqiijiyay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu halkaasi ku saxiixi doono dastuurkii la meel mariyay waxaana uu jeedin doonaa khudbad kale oo aad u kulul haddii uu caawa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay dastuurkan waxa la isweydiinayaa isla caawa miyuu madaxweynuhu ku dhawaaqi doonaa in dastuurkan uu dhaqangal u yahay lagana guuray dastuurkii hore ee ku meel gaarka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud qudbadu xalay uu jeediyay kadib markii baarlamaanka Soomaaliya shalay ay meel mariyeen dastuurka waxa uu ku sheegay in dastuurkan ku meel gaarka ah in muddo dalka Soomaaliyeed uu lahaa maanta wixii ka dambeeyana Soomaaliya ay si toos ah kaga gudubtay inay yeelato dastuurka meel gaarnimo laakiin waxa la isweydiinayaa marka ku meel gaarnimada dastuurka laga soo tago sidee ayuu u dhaqan galiyaa goorma ayuu se dhaqan galiyaa haddii madaxweynuhu uu caawa ku dhawaaqo in uu dhaqan galayo dastuurkii ay baarlamaanku ansixiyeen isaguna uu saxiixay dhaqan gal uu yahay faafinta rasmiga lagu soo saaray isla caawa waxay ka dhignaa doontaa in isla madashaas in ka badan 50 wasiir ay ku weyn doonaan xubinnimadooda baarlamaan ama xubinnimadooda wasiir haddaba kulankan ayaa caawa ka dhici doona madaxtooyada Soomaaliya il gaar ah ayaana lagu hayaa inagu idila wadaagi doono macluumaadada ka soo kordha iyo sidoo kale khudbada madaxweynuhu halkaas uu ka jeediyo khudbadii xalay aad ayuu dheereed fariin ayuu u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xubnaha siyaasiyiinta ah ee isaga ka fikir duwan ay isugu jira kuwa shalay xukunka kula tartamayay iyo sidoo kale kuwa markaasi diidan dastuurka oo madaxweyne Deni iyo Axmed ay ka mid yihiin waxa uu sheegay in mar walba dastuurkan uu dhameystir lahaa madaxweynaha Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay ragga kale ee ka soo horjeedo in aysan u diidin fursadda qaaliga ah ee uu isagu nasiib u yeeshay waxaana uu ugu baaqay sidoo kale inay ixtiraamaan dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed waxaana uu sidoo kale u soo jeediyay inaysan jilbaha qaban hor u socodka dawladnimada Soomaaliya ee sameynayso haddaba
qodobada madaxweynuhu aad ayay u kululay waxaa jirtay qayb gaar ah oo warbaahinadu aysan isticmaalin madaxweynuhuse si kulul uu fariin ugu diray ragga siyaasiyiinta ee ka fikir duwan warbixinada kale haddaan fiirino maanta magaalada Garowe ee caasimada Puntland waxaa ka degay diyaarad gaar ah oo siday xubnaha xildhibaanada ee laga soo doortay deegaanada maamulka Puntland kuwaasi oo in maalmaha ku xanibnaa magaalada caasimada ee Muqdisho xildhibaanadaasi ayaa wada tashi u aadayay magaalada Garowe laakiin dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku hor istaagtay in magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Puntland ay tagaan xildhibaanada dowladdu markii hirgelisay qorshaheeda waxa ka bedelkii iyo dhameystirka dastuurka baarlamaanka inay u codeeyeen isku daygeedii la xiriiray inay sabato xildhibaanada qaar oo ay dhaqaale u balan qaado ayaa waxa ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya arinta markii ku hungooday ay qorshaheedii yoolkeedina ay gaartay maanta ay fasaxday xildhibaanadii ku xadbinaa magaalada Muqdisho ee Puntland ka soo jeeda diyaarad ayaana ka qaaday magaalada Muqdisho iyadoo oo la geeyay magaalada Garowe fiiro gaar ah xildhibaanadan diyaaradoodii magaalada Garowe ku wajahneed horaan waa la soo celiyay Muqdisho ayaa lagu soo celiyay iyagoo sida sheegteenna xanibaad ayaa la saaray oo waxa loo diiday in magaalada Muqdisho ka baxaan dowladda Soomaaliya dhacdada eeda loo jeediyay ilaa iyo goorta tani war rasmi ah kama aysan laakiin arinta xisaab gaar kale waxa weeye inay maanta magaalada Garowe ay ka degeen halkaasina si ballaadan lagu soo dhaweeyay sidoo kale xubnaha maanta magaalada Garowe ka degay waxa kamid ah la taliye gaar ah oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini la taliyeeshiisa kamid ah kaasoo isaguna magaalada Muqdisho ku xanibnaa waxa lagu eedeeyay falal amniga ku ah waa la xiray laakiin Asad Diyaano ayaa la sheegay inuu sii deeyay la taliyaha madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo dowladda Soomaaliya ka baqdan qabtay inuu magaalada Muqdisho ka qaybanayo lacago lagu carqaladeynayo dastuurka dalka ugu dambeyn si kastaba ha noqotay dowladda markay ay gaadhay yoolkeedii dastuurka waa ay fasaxday xubnahan xildhibaanada ah iyo sidoo kale shakhsigan la taliyaha u ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ee ku wajahnaa magaalada Garowe ayaan lagu soo dhaweeyay halkaas ayay ku yeelan doonaan wada tashi gaar ah oo arrimaha dastuurka ku aadan arinta dastuurka ayaan wali galkaas ayaan ku guda jirnaa magaalada Muqdisho waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo xasaasi ah oo ay wadaan Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale xubnaha kale ee golaha mustaqbalka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sida xaqiijiyo ku biiray dhaqdhaqaaqaasi ka socda magaalada Muqdisho ee lagu diidan yahay qorshaha dowladda Soomaaliya ee ay dastuurkii Soomaaliya ay kaga dhigtay sida iyagu ay qabaan dastuur madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameystay kii xaq ahaa ama kii la isla ogolaana in dowladda federaalka Soomaaliya ay meesha ka saartay in dowladda federaalka Soomaaliya ay meesha ka saartay iyagoo hadda walaac ka muujinaya in dalka uusan dastuur lahayn halka garabka dowladdu ay ku doodayso in dastuurka cusub ee la meel mariyo uu yahay dastuurka sharciga ee dalku yahay isku sabada dube xilli dastuurkan diidmaada uu la kulmayo waxa dhinaca kale ilaa iyo hadda aan soo dhaweynin lafta gareen iyo qorqoor oo walaac xoog laga muujinayo miyay ka shakisan yihiin dastuurkan maxay u soo dhaweeyeen 24 saacadood ayaa ka soo wareegtay wax ka badan markii baarlamaanka Soomaaliya ay cod gacantaaga uga codeeyeen in dowladda Soomaaliya meel marisay dastuurkeedii haddaba arintan ayaa shaki gaar ah sidoo kale abuuraysa laakiin waxa soo dhaweeyay dhinaca kaleeto xubnaha golaha samata bixinta garabkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u goostay oo Cumar Cabdishiic Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Daahir Maxamuud Galay ku jiraan ira kale oo aad u badan ayaa soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabelle Cali Guulaab Xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa iyaguna soo dhaweeyay dastuurkan cusub dastuurkan haddii ay lafta gareen iyo qorqoor ay soo dhaweeyaan waxay ka dhigan tahay in maamulkoodu uu aqbalay inuu qabto doorasho ay maamulayso dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka dhigan tahay maamulkoodu uu aqbalo in uu qabto doorasho ay maamulayso dowladda federaalka Soomaaliya maxaa ku biinaysaa aragtida hoos nugu gudaana qaybta inta ay jacayl ku soo gabagabeeyay min laana saaxiibayaal waxay kaga tageynaa nabadgelyo